habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin dowladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadalkii uu dhawaan madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu ku sheegay in Soomaaliya ay tahay dal aan dowlad ka jirin wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo BBC-da la hadlay iyo falanqayn ayaynu idinkaga haynaa qodobada kale caawana waxa ka mid ah taliya ku-xigeenka ciidamada asluubta Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in laba nin oo xabsiga dhexdiisa ku weeraray nin British ah ay ahaayeen kooxda la baxday dowladda Islaamiga waxay dib ugu laabanaysaa Brussels ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay inay doonayso inay dib ugu gorgortanto heshiiskeedii ay uga baxaysay midowga Yurub waxa kaloo aan idiin haynaa magaalada Hargeysa dhalinyaro ku dadaalaysa barashada ciyaarta lagdanka oo markaasi doonaya in ay xirfad u noqoto kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaan ku bilaabaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadal uu shalay jeediyay madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni hadalka ayaa waxa Museveni uu ku sheegay oo uu yiri waxa jira dalal badan oo aan dowlad lahayn way jiraan laakiin ma laha buu yiri iyadoo markaasi hay'ado dawli ah oo abaabulan aanay lahayn oo maamula buu yiri Soomaaliya ayaa ka mid ah waxa jira dalal kale laakiin ma sheegayo uu yiri sabab diblomaasiyadeed awgood haddaba waxa jirtay in ay sidoo kale soo baxday warqadan been abuurka ah oo ay ku qoran tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaana ay aad ugu faaftay baraha bulshada oo looga doodayay arintan haddaba marka aynu eegno wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa maanta ka jawaabay hadalkaasi Yoweri Museveni waa Axmed Ciise Cawad oo ku sugan magaalada Mandera BBC-da ayuu la hadlay waxaana weydiinay aragtidiisa ku wajahan hadalkaasi Museveni waxaana uu ku jawaabay sida tan qofkii raba wuxuu raba dhihi kara anagu waxa dadka la yiraahdo waxba naga gelin anagu waxaanu nahay dawlad jirta adduunka oo dhan aqoonsan yahay waana sababta hadda halkaan ula joogo wasiirka arrimaha dibadda Kenya marka qofkii iska qayliya qofku raba ha ahaade isaga u taala haddaba si aynu u falanqeyno xaaladdan Uganda iyo Soomaaliya waxa stuudiyaha ugu la sugan Cabdullaahi Axmed Came oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ma la yaabtay hadalkan Museveni uu sheegay hadalka Museveni marka hore inaan eegnaa meeshuu ka yiri wuxuu la doonayay inuu yiraahdo marna ma doonayn Soomaaliya inuu si gooni ah u ataaga balse qof walba Soomaaliya uu dhibsanaya hadal noocaas balka xaqiiq baa jirta ah in Soomaaliya ay tahay wadan adduunka uu aqoonsan yahay inay tahay wadan saaqidnimada markay timaado adduunka sida loo tiriyo fail state-ka inaan xag hore kaga jirno laakiin marka laga soo tago wadan dagaal ka dhaceen inuu yahay inuu erayga yiraahdo wax dawlad ah kama jirto iyo nidaam iyo wax maamula soo si xogaa kuma xadgudbin dabcan qof walba Soomaali way dhibaysaa laakiin xaqiiqda maxay ninkan waxa ka jooga ciidamo dhowr iyo 10 kun isaga ugu ciidan badan waxa jooga xaqiiqdii waddanka la socdaa inaan magaalada Muqdisho ee dawladii gacan buuxda ku wada heenin xuduudii ayuu maanta wasiirka arrimaha dibadda jooga oo Kenya laga hadlayaa xaqiiq iska cad buu soo umana maleynayay inuu siyaasad doonayay isaga wuxuu sharxayay si academic kale wuxuu u sharxayay waxa la yiraahdo nation of state iyo dawlad iyo wadan waxay kala yiraahdaan Soomaaliya waa wadan buu yiri laakiin dawlad kama jirto yiri laakiin inuu yiraahdo qaar kalena way jiraan laakiin diblomaasiyadan uga yar xishoonaya inaan ka hadlo uma sinaanin Soomaaliya waxa intaas oo wadan oo Soomaaliya kaliya aan ahayn laakiin burbursan dabcan marka aad eegtid xarumaha ugu waaweyn ee qabka Soomaaliyeed inay tahay in la ilaaliyo madaxtooyadii airportkii takadii ciidamadiisa baa ilaalinaya Muqdisho marka de privilege buu isagu haystaa inuu ilaa xad wuxuu doono waddankayga ka dhigi doono annagay noo taala in aan ka shaqeyno dawladdeeda in ciidanka ay naga baxaan dib u heshiisiin waddankayga ka diiwaangelin dawladda soo hadal qaaday dawladdu jawaab ay ka bixisay sidaan arkayna wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya BBC-du la hadlay wuxuu yiri annagu waxba naga ma gelin cid iska qaylisa iska hadasha waxa daliil cad u ah uu yiri in wasiirkii arrimaha dibadda Kenya aan maanta isla joogno Mandera marka inay hadalkaas ku jawaabaan dhanka dawladda iyaga ma la filayay dawladda waayahanba waxay ku jirtay wax la yiraahdo siyaasad arrimaha dibadda iska caabina oo ismuujina dabcan dad badan oo Soomaaliyeed waxa arintan keenay inay aad u faafteen waxa dad Soomaaliyeed baa doonaya inay dib Soomaaliya u soo noolaato laakiin dadka Soomaaliyeed mararka qaar kood madaxda iyo dawladda ayaa isla xaqiiqda ka fogeynayaan oo halka aan taaganahay inaan aragno
tabartayda aan garanno deetana markaas adduunka saa kulama caamilna ay tahay runtii inaan wajahno weeyaan Soomaali awoodeeda halkaa bay taalaa ciidamo Ugandese ah oo 12 kun ayaa Muqdisho iyo gobolada Muqdisho ku hareeraysan jooga iyaga wadankana kala haya amniga Soomaaliya iyaga gacantooda ku jira taa weeyaan tahay in wasiirkayga iyo madaxdayda ay waan gartay dadka Soomaali dhamaantood dowladda Soomaaliya wad ka hadashay ayaan tan waxa tiri siyaasadda arrimaha dibadda ee xoog bay saaraysay ayaan dhaweydna wixii dhex maray iyagii waan ogeyn qaramada midoobay jawaabtii oo kala ah inay yiraahdaan suurtagal ma ahayd oo ama xiriirkan u jarnay inkastoo warqadan been abuur ay ahayd laakiin inay soo baxdo hada macquulba ma aha waata aan lahaa imika madaxtooyadii bay ilaalinayaan madaxweynaha amnigiisa gacanta ku hayaan prime ministerka gacanta ku hayaan xuduudda magaalada Muqdisho amnigeeda hadii ay fara oo laakiin amaankii gacanta ku hayaan taas micnaheeda maaha Soomaaliya Soomaaliya aysan dawlad ka jirin may dawlad Soomaaliya way ka jirtaa oo adduunka aqoonsan yahay laakiin waxa la yiraahdo imperial sovereignty wax gacanta lagu taaban karo oo maxay ahayd sovereignty ah Soomaaliya gacanta maanta kuma jirto xuduudiba wasiirka arrimaha dibadda maanta jooga wuxuu ka hadlayaa Kenya iyo wuxuu kala hadlayaa si xuduudan dalalka uu qariyo uusan sheegin kuwaad isleedahay way طبعا way jiraan dalal badan baa jira markii leedahay waxa jira adduunka wax cabir sanad walba soo baxa annaga ayaa xagga hore saaqibnimada ka galna South Sudan baa ku soo xigta Iraq baa imika dib uga baxaysa Afghanistan baa ku jirta wadamo badan ka jira laakiin isaga awood buu u leeyahay Museveni markay Soomaaliya timaado dabcan maadaama ciidamadiisa madaxdayna ilaalinayo inuu sidaa yiraahdo aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdullaahi Axmed Camey oo stuudiyaha nooga falanqeynaya arrintaasi bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa taliyaha ciidamada amniga iyo sirdoonka Suudaan ayaa amray in la sii daayo dhammaan dadkii la xiray intii dibadbaxyada ay socdeen tan iyo bishii December kooxaha u dooda xuquuqda rayidka ayaa sheegay in ka badan 1,000 qof la xiray tan iyo markii ay bilowdeen mudaharaadyada ka dhanka ah dawladda madaxweyne Umar al-Bashir oo lagu dalbanayay in uu iscasilo maxkamadda sare ee Pakistan ayaa diiday sharci lagu sii deynayo haweeneyda Kirishtaanka ah ee lagu xukumay dilka kadib markii ay diinta aflagaadeysay Asia Bibi ayaa 8 sano u xirnayd dil kadib markii bishii October ay maxkamad go'aankaasi ay baabi'isay waxa la filayaa in hadda magangeliyo laga siiyo wadan kale oo dibadda Pakistan ah shirkadda weyn ee Shiinaha ee la yiraahdo Huawei ayaa waxa ay beenisay wax khalad ah in ay samaysay kadib markii dacwadoogayaasha Mareykanka ay dambiyo ku soo oogeen shirkadaasi Huawei waxay sidoo kale diiday dambiyo loo haysto madaxda dhaqaalaha ee shirkadaasi Meng Wanzhou taasi oo lagu xiray bishii hore wadanka Canada dacwadda loo haysto waxa ku jira isdabamarin dhaqaale cadaaladda oo is hortaagtay iyo xatooyo tiknoolajiyada shirkadda Mareykanka ee Apple ayaa qiratay in dhibaato ay ka taagan tahay barnaamijkeeda muuqaalka la isaga waco ee FaceTime la yiraahdo oo fududeeyay in la isdageysto xitaa haddii qofku uusan qaban telefonkiisa mararka qaar iPhone-ka waxa uu dirayaa muuqaal video iyadoo qofka aanu ogeyn Apple waxa ay sheegtay in ay xalisay toddobaadkana ay markaasi wax ka qaban doonto waxa la xaqiijiyay in muwaadin British ah oo lagu magacaabo Anthony Cox oo hadda ku xiran xabsiga dhexe ee Muqdisho oo weerar sakiin ay u adeegsadeen kooxo xabsiga kula jiray in ay ka tirsanaayeen kooxda la baxday dawladda Islaamiga iyagoo gaarsiiyay dhaawac yar sida uu sheegay taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta ee Soomaaliya labadana Daacish bay ahay nimanku marka nimanka ku dhacdo weeyo dadku hadiiba meesha laga gooy kar qoorta yaqaani waxaan aqoonayna bareen oo gadaal bay dadka gooracaan sakiintii kula booda marka soo gaaday qoorjarka ka hoosayda ayuu sakiintii ku sarti oo lahaa yaa gacantiisa la qabtay marka wax yar oo cidifoodeed oo waxba ahayn oo yani aan wax daawa loo isticmaalin oo garan kartaa maqaarka xitaa ma jeexin sirjin ah yaa soo gaaray oo nabad qaba oo fiican yahay haddaba Anthony Cox ayaa maalmo ka hor waxaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho isagoo markaasi lagu eedeeyay in uu khalkhal gelinayay amniga dadweynaha garoonka maadaama boorsadiisa laga helay sunta dadka ilmada ka keenta mar uu diyaaradda raaci lahaa waryahayaga Qaalib Baaruud ayaa booqday maanta xabsiga dhexe warbixintan ayuuna goor dhaweyd nooga soo diray
waxaannu maanta booqannay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho halkaasoo aannu ku sugnayn in ka badan 5 saacadood waxa uu qorshuhu ahaa inaannu la kulanno Thomas Cox si aannu wax uga ogaanno waxa ka soo gaaray weerarkii lagu soo qaaday dhowr habeen ka hor intii aannu halkaa ku sugnayn way noo suurtogeli weyday inaannu indhahayaga ku aragno Thomas Cox waayo waxaa arrintaa hor istaagay xeerlaaliyaha guud ee qaranka intii aannu halkaa joognay waxaannu inkastoo aannu u badnayn qaybta farsamada lagu baro maxaabiista waxaannu halkaa ku aragnay dad kala duwan oo lagu soo eedeeyey dembiyo kala duwan waxaase naloo xaqiijiyey maxaabiistana aannu iyaguna noo sheegeen inay halkaa ku xidhan yihiin dad lagu soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururada la dagaalama dowladda Soomaaliya sida Al-Shabaab iyo ISIS waxa uu taliyay ku-xigeenka ciidanka asluubtu noo sheegay markii weerarkaasu dhacay in uu ka wareejiyey ninkan ajnabiga ah dhismaha guud ee ay ku xidhan yihiin maxaabiistu loona wareejiyey hoyga uu degan yahay taliyaha xabsiga halkaasoo hadda lagu ilaalinayo waxaa Thomas Cox 19 bishan lagu xidhay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde kadib markii la sheegay in boorsadiisa laga helay sunta indhaha ka ilmaysa kadib waxay maxkamadda gobolka Banaadir amartay in loo dhaadhiciyo xabsiga dhexe ee Muqdisho iyadoo oo sheegtay inuu khatar geliyay deganaanshaha guud kuna guul daraystay inuu sheego waxyaalo qarxa oo ku jiray boorsadiisa haddaba lama oga waxa ay hay'adaha garsoorka ee Soomaaliya ka yeeli doonaan ninkan ajnabiga ah ee lagu soo eedeeyay inuu khatar geliyay amniga guud ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde lamana saadaalin karo halka lagu hayn doono maadaama uu weerar kula kulmay xabsiga dhexe ee Muqdisho mar walba waxaad nagala socon kartaan boggayaga BBC Somali Facebook fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaas oo aad ka heli karto muuqaallo kala duwan mar dambe ayaanu isku soo laaban doonaa daawadayaal wali waxaad daawanaysaa barnaamijka caawiya caalamka balaan xasuusiyo qodobada wararka caawa ugu waaweyn dowladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo ahaa in Soomaaliya aanay dowlad ka jirin mas'uuliyiinta xabsiga dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in 2 nin oo xabsiga dhexdiisa ku weerartay nin British ah inay ahaayeen kooxda la baxday dowladda Islaamiga baarlamaanka Britain ayaa sameynaya cadeymo isdaba joog ah oo ku aadan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub iyadoo ay labada bilood hadda ay ka harsan tahay taariikhdii ay Britain ay ka bixi lahayd midowga Yurub xildhibaanada ayaa waxa ay go'aamiyeen talaabada ay ra'iisul wasaare Theresa May ay tahay inay qaado markii horeysa waxay ku gacan sayreen heshiiska ay ka keentay Brexit ama ka bixitaanka midowga Yurub ra'iisul wasaare Theresa May ayaa waxa ay ku furtay shirkii maanta iyadoo baarlamaanka u sheegaysa inay doonayso in ay dib u furto heshiiskii ka bixitaanka ay Brussels ay la soo gashay gorgortanka isbedel sidan ah ma fududa waxay noqonaysaa in dib loo furo heshiiska ka bixitaanka taasoo ah tallaabo aan u cuntamayn wadamada Yurub laakiin waxaan aaminsanahay haddii aan aqalkan ogolaasho ka helo taageerana aan wasiiradeeda ka helo si hordhac ah waxaan ugu guuleysan karaa isbedelkan uga baxayna EU midowga Yurub ayaa sheegay in aysan dib u furi doonin wada hadallada heshiiska ka bixidda balse dhinaca cuntada ayaa la sheegayaa in saameyn ay ku yeelan doonto xaaladan haddii heshiis la'aan looga baxo cabdirasaaq xaaji maxamed siraad ayaa eegaya 3 meelood marka laga soo qaado meel ahaan cunnada lagu cuno Britain waxa ay ka timaadaa midowga Yurub imka qaar baa ganacsada ugu weyn ee cunnada iibisa ayaa waxay ka digayaan haddii Britain ka baxdo midowga Yurub iyada oo heshiis aan lagu bedelin inay cabsi gelin doonto cunnada ay soo iibsadaan waa inaan maskaxda ku haynaa tirada alaabaha aan ka soo dhoofsanno Yurub marka la gaaro bisha Maarso ee aan ka baxayno qiyaastii 70% midhaha jilicsan iyo khudaartu waxay inooga timaadaa Yurub inta badan alaabtaasi waxa ay soo martaa dekedda Calais ee France sidaa daraaddeed carqaladeyn ku timaada Calais waxa ay saameyn ku yeelan doontaa dukaamada waaweyn ee dalkan digniintanu hadda macaqilgalba mise waa mid dadka lagaga bajinayo waxa ay ila tahay digniin munaasiba waana muhiim in dadweynuhu ogaadaan sida waxay yihiin marka
marka laga baxo midowda Yurub taasi oo noqonaysa nolol maalmeedkaaga saameyn karta mustaqbalkana ma jirto cunto badan oo la soo dhoofin doono iyo raashinka xilliyada wax soo saar gudaha ah ayaa wanaagsanaan lahaa waa cabsigelin muuqata waxay ahaan lahayd in dalka uu xoogaa iska sii socon karo uga mahadceli wixii ay soo sameeyeen warqaddu waxay ka digaysaa inaanay jirin dhul ballaaran oo la dhigo khudradda freeshka ah oo markaa heshiis la'aan haddii lagaga baxo midowda Yurub sicirka cunnada uu kor kici doono misaal haddaynu u soo qaadanno adhiga Britain waxaa la tartami doona hilib ka jaban oo aan xad lahayn oo ka yimaada New Zealand taasu markaa sicirka hoos ayay u dhigaysaa waxaanay dhibaato weyn ku keenaysaa beeralayda Britain go'aanadani waxay yihiin qaar aan lagu degdegin sida ay sheegayaan khubarada siyaasadaha cunnada Professor Tim Lang ayaa waxa uu leeyahay Britain cunno waxay ka heli kartaa meesha ay doonayso looma baahna khudrad fresh ah inay ka soo iibsadaan Spain, Portugal, Talyaaniga ama Greega mushkiladdu waxa ay tahay arrimahaas waa inay qandaraasyo ka yimaadaan dawladda Britain waxa ay leedahay ammaanka cunnada Britain meelo badan ayuu ku lug leeyahay waxaana ka mid ah soo saarka xoogga ee dalka gudihiisa kaasoo socon doona haddii laga baxo midowda Yurub iyo haddii kaleba bisha soo socota Nigeria waxa ka dhacaya doorashooyinka madaxweynaha iyadoo rabshadaha Boko Haramna ay warwar ku hayaan dadka wadankaasi dagaalka ciidanka Nigeria iyo Boko Haram u dhaxeeya ayaa bilihii u dambeeyay si laba kacleeyay gobolada waqooyi bari ee wadankaasi haddaba iminka waxa la furay goobo dhaqan celin ah oo lagu sameeyo dhalinta Boko Haram ka soo noqda Cabdiraxmaan Bidaan ayaa faafahinaya halkani waa goob ku taala gobolka Gombe oo militariga Nigeria ay ku tilmaamaan goobta ay ugu yeedheen xarunta ka saaridda xagjirnimada maxamed waxa uu 13 jir markii kooxda Boko Haram ay qafsadeen tuuladii uu deganaa dabeetana ay afduubeen isagoo 6 jira waxaana uu sheegayaa inuu ka qayb qaatay dhowr weerar oo ay Boko Haram ku qaatay tuuladaasi iyo hareeraheeda 2017 nolosha markaan Boko Haram la joogay aad bay u xumayd meel xun baan ku dhacay kumaan faraxsanayn gadaal ayaana ka ogaaday in xubinnimadeedii Boko Haram ay aad u xumayd barnaamijka 12 bilood soconaya ee la rabo in lagu dhaqan celiyo dadka ka soo baxay ururkaasi Boko Haram ayaa waxa uu furan yahay dhammaan xubnaha iyagu soo dhiiba iskooda ah dib ugu soo laabta waxaana halka lagu baraa waxyaabo ah farsamada gacanta ah sida inay kabaha sameeyaan dawaarka iyo sida wax loo kariyo waxaana la doonayaa inay dadkaasi noqdaan dad hadhow toole muruqooda maala oo wax la soo baxa intaan lagu soo dhaxdaynin bulshada kadib markii ay u dhaarteen dalkooda Nigeria ayaa 154 ka dhalinyarada ahi waxa ay soo gabagabeeyeen qaybtii labaad ee barnaamijkooda sanadkii hore waxa ka qayb galay 94 nin oo dhalinyaro ah tababarkan waxaana ay militariga Nigeria sheegayaan in dhammaantoodba aanay dib ugu noqon ururka Boko Haram dagaalyahanadan hore ee halkan jooga ayaa la rabaa inay dib ugu noqdaan bulshooyinkii ay ka yimaadeen I'm very certain that they are not going to go back waxaan aad u hubaa in aysan dib ugu laaban doonin ficilkan marka la eego waxyaabaha loogu talagalay in barnaamijkani uu xaqiijiyo si wanaagsan ayaa loo diyaariyay loo tababaray loona abaabulay si loo hubiyo isla markaana mustaqbalka fog loola socdo in aanay dib dambe ficiladan ugu noqon it will not have a relapse Boko Haram ayaa haddaba iyagu waxay fuliyeen weeraro badan waxaanay ka fuliyeen gobolka waqooyi bari ee Nigeria waxaana jirta cambaar fuusha qof kasta oo ururkaasi lala xidhiidhiyo waxaanay tahay haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ka hor imanaya tababarkan iyo barnaamijkanba sida loogu kalsoonaanayo loona aqbalayo dadka ururkaasi ka soo baxay ee haddana dib bulshada loogu sii dhexdaayo Salamatu Shatima ayaa dhibaato weyn ku dhacday sida ay sheegayso waxaana ay sheegtay in ninkeedii iyo 7 ka mid ah carruurteedii ay ku weyday kadib markii ay Boko Haram halkaasi weerar ka fuliyeen haddii ay toobad keeneen si dhab ah oo aanay mar dambe ku noqonayn ficiladoodii waan saamaxayaa laakiin ma iloobi doono weligay wax dhici kara maaha bilihii dhaweedayna soo dhaafay Boko Haram waxay sii kordhiyeen weeraradooda ay qaadayaan waxaana ay sheegeen xeeldheerayaashu in ay weli jiraan duruufihii dad badan ku kalifay inay marka horeba Boko Haram ku biiraan waxaana jirta shaki taagan oo ah in raggani laga yaababa inay dib ugu noqdaan Boko Haram
markana haddii aynu eegno ciyaarihii caawa wax yar ka hor ayaa kooxda kubadda cagta ee Qatar si weyn waxa u jirtay kooxda dalka Khaliijka iyaga oo ku garaacay 4-0 waxay hadda ciyaareen finalka koobka dalalka Asia Imaaraadka oo martigelinayay ayaa qaybtii koobaad lagu aamusiyay 2 gool horyaalka Ingiriiska Manchester City ayaa haysta fursad ay ku soo afjirto dhibcaha Liverpool ay ku hogaaminayso tartanka iyaga oo maanta la kulmaya Newcastle ilaa markii lagu garaacay Leicester kooxda Pep Guardiola waxay ku guuleystay 8 ciyaarood oo ay dhaliyeen 33 gool iyagoo doonaya inay xajistaan koobka dhinaca Manchester United waxa ay soo dhaweynaysaa kooxda Burnley ciyaaryahanka Britain numberka koowaad tenniska uga jiray Andy Murray ayaa qaliin sinta looga sameeyay ciyaaryahankan 3 jeer koobabka waaweyn oo isku xigta qaaday wax la sheegay inuu niyad jabsan yahay laakiin uu filayo in qaliinkan uu soo afjari doono xanuun badan oo isaga haystay dhalinyaro ku kala nool dhowr magaalo oo ku yaala jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa barta ciyaarta legdanka ama qalaama rogodka barayaasha ardaydan ayaa aaminsan in ay carbintani ay dhalinyarada ka mashquulinayso in ay galaan amaba ay yeeshaan balwado isla markaana aqoon iyo jidhisba ay u tahay wariyaha BBC-da Sadiq Maxamed Burmad ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa dhowr boqol oo dhalinyaro ah ayaa barta ciyaartan ardaydu waxay ku kala nool yihiin qaar ka mid ah gobolada Somaliland Amiin ayaa ka mid ah ardayda imaka dhigata dugsiga waxaan uu ii sheegay inuu ilaa yaraantiisii qalqaali ahaa balse intii uu legdanka barashadiisa bilaabay dulqaadkiisii uu batay qaar badan oo dadka bulshada far badan baa ay gudadaan waxaan baad baratay ma dadka ku tijaabisid waxaan mid caado baratay laakiinse markaad waxaan adigu aad baranaysid adigu garanaysid waxaan garanaysid hadaa dadka ula tagto waxaan xanuunkiisa garanaysaa waayo waxaan adiga awoodda la arkay qaabka aad u qaasho imiga laag baa saw qaas Allah gal qaaysa awoodiisa ayaad garanaysaa waad ka diinaysaa markaas waayo waxaan idee hadhow tolo halis ku keeni karaa si yaro fudud buu qofku ku dhiman karaa hadaad hal looto ku dhufato ama aad laa ku dhufato marka aad iyo aad marka ugu aadata inaad bulshada ku tijaabisid macalinka ardaydani 12 sanadood ayuu baranayay legdanka waxaanu ku guuleystay tartanno heer caalamiya waxa uu iga sheekeeyay waxa ay dhalinyaradu ka faa'iidayaan xirfadan uu baro oo uu aaminsan yahay inay barbaarin wanaagsan tahay ardayga marka la qorayo waxa la weydiiyaa shuruudaha waa laba shuruud baa la weydiiyaa ardaygu inuu waxaan balud lahayn iyo aan ardaygu caafimaad qabo ardaygu caafimaad qabo way arday caafimaad qabinta wixii ciyaar kari maayo faa'iidada ay anu barnaa waxay tahay koobaad in dhalinyaro caafimaad qabtan soo saarno oo maskaxdoodu maxay ay mar walba shaqaynayso yaanu jecelnahay oo taariibkii aanu ka ilaalino muxaadaraadkii aanu ka ilaalino dhalinyaro cusub oo maxay caafimaad qabta ay soo baxdo ka soko wiilashan iyaguna legdanka iyo qalaamo rogodka halkan waxaa ku barta gabdho walow aan loo ogolaan inaanu sawir ka qaadno waxaanay muujinaysaa isbedel dhanka jidhiska iyo jimicsiga oo soo kordhay maadaama Soomaalidu dhaqan ahaan ay ku liiteen Sadiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa ugu dambeyntiina waxaan idinkaga tageynaa Alan Robert oo ah nin Faransiis ah oo loo yaqaan Spider-Man ninkii caarada ahaa ayaa waxa uu fulay dhismo dheer isagoo markan isticmaalaya dhismo ku yaala Philippines ninkan oo 56 jira waxa uu toos iyo hoos iyo korba ugu socday dhismahan oo 47 dabaq ah oo ku yaala magaalada Manila waxa uu hore u soo fuulay 150 dhismo oo dhaadheer oo caalamka ku yaala oo ay kamid tahay dhismaha ugu dheer ee Burj Khalifa ee Dubai inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka caawa wad ku maasantiin daawashadeena intaanu mar kale dib u kulmayno dhamaantiinba habeen wanaagsan Thank you.